halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebooka iyo barteena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan akhirta hawada inagala xiriirtay meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo Isniin 26 bisha Juulaay sanada 2021 arrimahan barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxa kamid ah xiisada ka taagan wadanka Tunisia xilli dad tiro badan ay ka mudaharaadayaan dawladda uu kala diray ra'iisul wasaaraha xilka ka qaaday madaxweynaha dalkaasi xukuumadda deegaanka Soomaalida wadanka Itoobiya oo sheegtay inay difaaci doonto dadka Soomaalida ah ee degan degmada Garbaciise iyo deegaanada ku xiran kadib dagaal qaraar oo halkaas ka dhacay dad badan ay ku dhinteen annagu hadda waxaan sameynayna waxa weeye hadda kadib dadka iyaga amnigoodana annaga ballan qaadayna oo aan difaacayna wixii kale ay u baahan yihiin gurmad iyo gacan qabadana diyaar baan u lanahay laba askari oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Hiiraan ee Soomaaliya iyo gabadha Soomaaliya ku matalaysa ciyaaraha Olombikada oo daqiiqado kadib feerkii ugu horeeyay Daily Donta qodobadaasi oo kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geela anigoo Cabditax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka ee Cabdiraxmaan Cali Dhimbil mahadsanid Cabditax waxaa jiray isku dhacyo ka dhacay banaanka baarlamaanka Tunisia kadib go'aankii madaxweyne Kais Saied uu ku joojiyay golaha sharci dejinta habeenkii xalay afhayeenka baarlamaanka Rashid Ganuuji ayaa furay fadhi golaha inkastoo ciidamadu isku hareereeyeen dhismaha taageerayaasha xisbigiisa siyaasadeed ee Nada iyo dadka taageersan madaxweynaha ayaa isdhexiyay intii isku dhacaas socday madaxweyne Saied wuxuu sheegay in joojintu ay laga maarmaan u tahay si dalka loo badbaadiyo warbixin cusub oo ka soo baxday qaramada midoobay ayaa cadeynaysa in dadka shacabka ah ee lagu laayay Afghanistan ay gaadheen tiro rikoor ah qaybtii hore ee sanadkan dagaalyahanada Taliban ayaa qabsaday ku dhawaad kala badh dalka oo dhan iyagoo maalmihii u dambeeyay ku jiray howlgalladooda isballaarinta Beijing ayaa si cadho leh ugu eedeysay Mareykanka inuu isku dayayo inuu wiiqo awoodooda sidoo kalena hoos u dhigo sumcaddooda dunida hadalkan ayaa ka soo yeedhay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Xi Jinping oo sheegay in Mareykanku uu Shiinaha ka dhigtay cadow muhmal ah oo kaga dhuunto dhibaatooyinka u gaarka ah ee haysta madaxweyne Rodrigo Duterte ayaa markii ugu dambeysay uu khudbad u jeedinayo Congress-ka Philippines wuxuu difaacay habkiisa waxqabad 5 sano ee la soo dhaafay wuxuu sheegay inuu wax ka qabtay kacdoonka shuuciyada iyo dambiyada baahsan ee hadheeyay dalkaas isagoo xoojinaya ciidanka booliska kuwaas oo uu sheegay inay si adag ula dagaalameen kooxaha ka ganacsada maandooriyaha oo dhibaato ba'an ku hayay dalkaas dalka Lubnaan madaxweyne Michel Aoun ayaa kulan la yeeshay ganacsadaha lagu magacaabo Najib Mikati kaas oo la filayay ama la rajaynayay inuu weydiistay inuu soo dhiso dawlad cusub oo ka hortagta caqabada dhaqaale ee dalkaasi uu la daalaa-dhacayo waxaa la rumaysan yahay in Mikati ay baarlamaanku xulan doonaan dhowaan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib maalmo kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaarihii magacawnaa ee dalkaasi ugu yaraan 7 qof ayaa loo xidhay inay ku dibad baxeen banaanka maxkamadda sare ee caasimadda dalka Nigeria Abuja halkaas oo hogaamiyaha taageersan dadka lagu magacaabo Biafra Nnamdi Kanu uu muuqdo inuu wajahayo dacwado ay ka mid yihiin khiyaano qaran kooxdan goosadka ee Mr Kanu horkacayo oo ah dadka asal ahaan ka soo jeeda Biafra ayaa ay dawladda dalkaasi mamnuucday dhageystayaal wararka caalamka BBC-duna waa naga intaa aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayuu kaasi ahaa wararka caalamka qodobadii ugu door korona ayuu nala socodsiinaya halkaas kala socotaana waa BBC ee dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka aynu ku bilownay sida aad warka caalamka ku maqlayseen afafka hore ee baarlamaanka wadanka Tunisia ayaa waxa ka dhacaya isku dhacyo kadib markii madaxweyne Kais Saied uu waxa la go'aansaday in la hakiyo kulamada golaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Rashid Ganuushi ayaa waxa uu bilaabay inuu fariisto afafka hore ee dhismaha baarlamaanka halkaas oo taageerayaashiisa xisbiga Nahda iyo dad taageeraya madaxweynaha ay isku farasaareen oo ay dhagxaan isla dhaceen dhanka kale ciidamada ayaa waxa ay isku gadaameen xarumaha dhexe ee dawladda ee magaalada caasimadda ee Tunis iyagoo waliba shaqaalaha ka hor istaagay inay xarumahaasi galaan Xasan Cali Geela ayaa faafahinta warkan soo akhriyo haatan stuudiga la soo biiray
cabdi fatax wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya caasimada Tunisia ee Tunis ayaa waxa ay sheegayaan in militarigu la geeyay xarumihii dawladda inta badan ee ku yaalay magaaladaasi waxayna la sheegayaa in ay ka hor istaageen shaqaalihii ee dawladda u shaqeynayay inay tagaan xafiisyadoodii oo ay shaqo tagaan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Kasba waxa jira isku dhacyo ka dhacay banaanka hore ee baarlamaanka dalkaasi kadib markii madaxweyne Kais Saied uu xalayta go'aansaday in uu laalo awoodii baarlamaanka dalkaasi hogaamiyaha xisbiga Nahda Rashid Qanuni oo ah afhayeenka baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa uu isku dayay inuu galo dhismaha baarlamaanka saaki aroortii hore hase yeeshee ciidamada militariga ayaa ka hor istaagay taa bedelkeedana waxa uu bilaabay inuu banaanka hore ee baarlamaanka uu fariisto taageerayaashiisa iyo waliba kuwa xisbigiisa Nahda ayaa waxa ay markiiba bilaabeen inay isugu soo ururaan halkaasi waxayna dhagxaan isla dhacayeen oo ay isdhagaxyeeyeen dadkii taageerayay go'aanka uu madaxweynaha qaatay xisbiga afhayeenka baarlamaanka Nahda waxa uu ku tilmaamay go'aankaasi madaxweynaha uu ku laalay awoodii baarlamaanka inay la mid tahay inqilaab hase yeeshee madaxweyne Saied waxa uu sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid loo baahan yahay oo looga hortagay buu yiri halista degdega ah ee ku soo wajahan dalkaasi Tunisia muddo bil ahba dalkaasi waxa ka jiray xisad siyaasadeed oo aad u kacsan iyadoo in sidoo kale ay jireen dadku inay ka cariisan yihiin qaabka ay dawladda ay u xakameysay cudurka COVID-19 iyo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi dhibaatada ba'an u geysatay dadka madaxweynaha go'aankiisan ah inuu laalo awoodda baarlamaanka ayaa waxa keentay dadka qaar inay soo dhaweeyaan oo ay sameeyaan dabaaldegyo magaalada dhexdeeda halka qaar kalena ay ka horjeesadeen oo gaar ahaan taageerayaasha afhayeenka baarlamaanka laamaha ammaanka sidoo kale waxaa la sheegayaa in la geeyey degmada lagu magacaabo Barda halkaasi oo ay joojiyeen in dadku ay u soo dhawaadaan golaha baarlamaanka iyo waliba meelaha kale wararkii u dambeeyay hata waxay sheegayaan telefishinka Al Jazeera xaruntii uu ku lahaa magaalada Tunisia inay la wareegeen ciidamo la sheegay in ay wariyaashii halkaasi ku sugnaa ku amreen inay isaga baxaan oo ay damiyaan qalabkii ay wateen taasina ayaa keentay marka in dad badan sidoo kale ay halkaasi isugu soo baxaan ilaa iyo haatan waxa dalkaasi ka jira sida saxda ah looba sheegi karo Cabdi Fatax aad ay u mahadsantahay xasan cali geel ayuu kaasi ah faafahinta warkaasiina la socodsiinaya wixii ka soo kordhan idaacadaha eega dambe ayaad ku maqli doontaan ama barteena internetka ee bbcsomali.com markana xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida waddanka Itoobiya ayaa sheegtay inay difaaci doonto dadka Soomaalida ee degan magaalada Garbaciise iyo deegaanada ku xiran hadalkan ayaa daba socday dagaal sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay aaggaasi oo la sheegay inay ku dhinteen Soomaali badan kadib markii halkaasi ay weerar ku ekeeyeen oo ay kula wareegeen ciidamo ka tirsan maamulka deegaanka Canfarta sida maamulka deegaanka Soomaalidu ay sheegeen dhanka kale dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ciidamada ammaanka ee federaalka ku eedeeyeen in ay ka gaabiyeen mas'uuliyaddii ka saarnayd difaaca shacabka deegaankaasi haddaba faafahintaas dheer waxaan weydiinay Maxamed Roble Maxamuud wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo khadka taleefanka igu warramay 24 bisha July maalintii Sabtidii ayay maamulka Canfartu soo weerareen magaalada la dhaho Garbaciise oo kamid ah 3 magaalo oo ku taala wadada laamiga ee Addis Ababa iyo Djibouti isku xidha 3 magaalo ay Canfartu sheegtaan laakiin 100% dad Soomaali ay degan yihiin weerarkaas aad leedahay waxa soo qaaday ciidamada Canfarta maxaa khasaaro ka dhashay wallahi khasaaro fara badan baa ka dhashay laakiin khasaaraha dhabta ah hadda cid ku cadeyn karto oo waxa sidaas weey ko dhihi karta ma jiro sababtoo ah magaaladii Canfarta ay soo weerartay Garbaciise iyaga gacanta ku haya magaalada dad badan ku nool yihiin bay ahayd dadkiina waxay noqdeen qayb ay dileen kuwa suurtagal ay u noqon karto inay meesha ka baxaan ay baxsadaan iyo kuwa ciidamada militariga ee federaalku ay gacanta ku hayaan haddaad dadkii marka deegaanka la xiriirteen dhimashada iyo dhaawaca wax tira oo idin sheegeen tiradu kala duwan tahay 150 dadka qaar baa noo sheegay kuwa kalena waxay noo sheegeen ilaa 300 laakiin xaqiiqadu waxay tahay ma sugna tiradu oo isbabedelaysaa marka waxaan tirada saxda ah inii sheegi karnaa marka aan maragtaanay goobta gacanta ku dhigno aan meedadkii aragno dirirta ka soconaysa Garbaciise maxay salka ku haysaa sheegasho dhul bay salka ku haysaa oo Canfartu waxay sheegtaan dirraba ilaa iyo tuulooyinkan aan ku sheegay 3 Garbaciise magaalada Cadday la yiraahdo iyo Anduf Macaan
saddexdaas magaalo oo ku yaala wadada laamiga ah ee Addis Ababa iyo Djibouti isku xidha ilaa Dirraba ayay sheegtaan. Marka sheegasho dhul bay ku haysaa salka, wax lay ku haysaa ma jirto. deegaanka waxaa tiri waxaa degan Soomaali 100%. waxaanan ognahay in deegaanadaas ay hoos tagaan maamulka Canfarta. marka maxaa keenay in deegaanadaas Soomaalida la hoosgeeyo maamulka Canfarta? 2014 iyay qolihii xukuumadda EPRDF ay maamuleysay yaa mataqaanaa si xaq darro ah u hoosgeeyey maamulka Canfarta, iyadoo dadka la tashanin ayay korka kaga keeneen ay yidhaahdeen Canfar baa tihiin, Canfar ka mid noqda. marka dadkuna ma jeclayn, sidaasaa lagu hoosgeeyey maamulka Canfarta. laakiin wasiir, idinka markaad awoodda la wareegteen dowladdiina waxay burisay go'aankaasi 2019 wixii intaa ka dambeeyeyna dagaalka meeshaas maalina kama istaagin. marka arrintood uga darteen soo ma ahan? ugama darin. marka annagu aan go'aanka ka laabanaynay, cabashooyin fara badan baa dadka nooga imanayay. inkasta ay dagaallo sidan oo kale aynan jirin, laakiin dadka si hoose ayay u leynayeen, dhibaato ay u geysanayeen. maalin kasta dadku markii hore way aqbaleen, waxay yidhahdeen bas Canfartaan ka mid noqonaynaa, inay nabad helayaan bay ismoodayeen. laakiin nabadoodii waxay noqotay nabad indhacado. maalin kastaba dad baa la leynayay, dhib baa soo gaadhaysay, waxyeelaa soo gaadhaysay, laakiin dagaal sidan oo kale kumaynan soo qaadayn. marka dadka anagoo ka duulayna ayaan go'aanka gaadhnay bay ahayd. go'aanku sidaan layskama gaadhin oo go'aan laablakaca maahayn, go'aan laga fiirsaday buu ahaa. haddaad ka fiirsateen marka go'aankiina ka laabateen, maxaadan u ilaalinayn ammaanka dadka? niyo arrintaasi meeshu anagu dee laba dowlad deegaan baa wada hadlayay. dowladda dhexe ayaa noo dhexaysa oo ilaa haddana noo dhexaysa. marka dowladda dhexe ayaa mataqaanaaye annaga dadkan ammaanka uga sugayna, idinku labada dhinacba ha ka kala durkaan tuulooyinkana lahaa oo heshiis baa Addis Ababa lagu gaaray. heshiiskii baan hirgelinay. heshiiskii markaan hirgelinay kadibna Canfartu heshiiskiibay iyay jebiyeen oo iyagoo maaragtaanay amarkii dowladda federaalka iyay iska diideen. marka saasay wax ku dhaceen. laakiin anagu waxaan diyaar u ahayn inay dowladda dhexe sida ay noo sheegtay iyaan dhaqan gelinay. hadda maxaad samaynaysaan marka? annagu hadda waxaan samaynayna waxa weeye, hadda kadib waxaa la yidhi ninka muuminka god 2 jeer bahal kama wada qaniinto. markaas hadda kadib dadka iyaga amnigoogana annagaa ballan qaadayna oo aan difaacaynaa. wixii kale ay u baahan yihiin gurmadi iyo gacanqabadana diyaar baan ula nahay. kaasi waxa uu ahaa Maxamed Roble Maxamuud, wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya oo khadka taleefanka igu warramaya. markana war kooban. wararka laga helay gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax wadada dhinaceeda la dhigay uu haleelay gaari u lahaa militariga Soomaaliya oo marayay tuulada Coomaad oo u dhaxaysa magaalooyinka Matabaan iyo Beergadiid. inta la xaqiijiyay 2 askari ayaa halkaasi ku dhimatay, 2 kalena oo ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la socday gaariga uu qaraxu qabsaday, sida ay BBC-da u sheegeen ila wareedyo ku dhow booliska. ilaa haatan may jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa lala eegtay ciidanka, balse weerarada noocan oo kale ayaa aalaba waxa qaadaa ururka Al-Shabaab. halkaad nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana doorashadii dhawaan ka dhacday jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland maalintii waliba 31 bishii May dhacday ayaa intii ka dambeysay ilaa haatan waxaa soconaya loolan u dhaxeeya xisbiyada oo ku saabsan cidda hogaamin doonta shirgudoonka aqalka wakiilada ee Somaliland. labada xisbi ee mucaaradka oo isbaystay ayaa waxa ay sheegeen inay haystaan 52 xildhibaan oo aqlabiyadda sidaas ku heli karaan, halka loo baahan yahay in 3 meelood oo 2 meelood kaliya inay helaan cidda doonaysa aqlabiyadda inay hesho. haddaba warbixin umurtaasi ku saabsan waxa ay noo eegaya oo inoo soo diyaariyay waryahayaga magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmed. fadhiga ugu horeeya ee yeelan doonaan xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ayaa la wada sugayaa. hadalhaynta maalintani ma aha mid ku kooban siyaasiyiinta ee waa mid shacabku ay u dhigtaagayaan. marka halkaasuu qaraar ku dhammaaday, natiijadiina waa rasmi. maanta laga bilaabo fadhigii maxkamadduna uu inoo xidhan yahay. halkaasay kusoo xidhatay si rasmiya ay u noqdeen xildhibaano sharciya kadib markii maxkamadda sare bil iyo 7 kadib maalintii doorashadu dhacday ay ansixisay xildhibaanadii la soo doortay. waxa xigaaba waa inay yeeshaan fadhigoodii ugu horeeyay oo madaxweynuhu uu yahay ka u leh inuu cayimo maalinta fadhigaasi uu qabsoonayo. fadhiga ugu horeeya waxaa lagu dhaarin doonaa xildhibaanada laguna dooran doonaa 3 xubnood ee shirgudoonka golaha noqonaya. waana sababta fadhigan goorta uu dhacayo looga wada dhur sugayo. labada xisbi mucaarad oo ay u soo baxeen 52 xildhibaan oo ah aqlabiyadda golaha
shaaciyeyna doorashadii kadib inay isbahaysteen ayaa kuraastan usoo sharaxay 3 xubnood oo kala ah Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka soo baxay xisbiga wadani oo ay la rabaan gudoomiyaha aqalka sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad ee golaha wakiilada ayaa waxay usoo kala sharaxeen 2 xubnood oo ka soo baxay xisbiga Ucud oo kala ah Umar Jaamac Faarax iyo Cali Xamuud Jibriil xisbiga talada haya oo dhankiisa shaaciyay heshiis ay la galeen xildhibaano ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee Ucud ayaa jagooyinkan la rabay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo kulmiye ka soo baxay oo ay la doonayaan gudoomiyaha golaha wakiilada iyo 2 xubnood oo Ucud ka soo baxay oo kala ah Siciid Mire Faarax Giire iyo Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo xisbiga kulmiye ay la doonayaan inay u sharaxaan jagooyinka gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad toddobaadadii ugu dambeeyay waxaa xisbi xaakimka iyo xisbiyada mucaaradkuba ay soo bandhigayeen xubno ku soo biiray midba dhankooda waxaanu la xiriirnay 2 nin ee jagada gudoomiyenimada u kala sharaxan labada dhinac ee loolamaya Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ah ninka xisbi xaakimka uu la doonayo gudoomiyenimada golaha wakiilada waxa hore uu soo qabtay xilal kala duwan waxaan weydiiyay Faratoon sababta uu jagadan uu isugu soo sharaxay iyo waxa uu isleeyahay waad ku mudan tahay in lagu doorto dastuurku sidiisaba wuxuu ku fadhiyaa taariikho wuxuu ku fadhiyaa heshiisyo marka la dhisayo waxa lagu dhisaa taariikhda iyo baahida dalka iyo dadkii curiyay baan haanu laga soo bilaabo xalqa qarameedkii draftkii aniga iyo rag kale aanu samaynay baa la qaatay dastuurka maanta qoran ee lagu dhaqmayo haddaad eegto page-ka u dambeeya haddaad eegto liiska ku yaala ee anigu aan ku jiro intayadii qoray technically dastuurka qoray baa ka mid ah dadka isu keenay nabad siiyey xeerarka u sameeyey heshiisyada dhex dhigay ayaanu ahayn constitutionkeennuna qayb weyn oo ka mid arrimahaas ayay ku dhisantay ku dhaqankiisa markay noqoto dowladihii baan ka mid ahaa 5tii madaxweyne ee dalka soo shaqeeyeyba 5taba waan la soo shaqeeyey waxaan soo doontay jagada waxa weeye maadaama aan khibradda u leeyahay inaan hore uga sii qaado halkaa waxaan salaamaya 28ka xildhibaan ee iminka la soo doortay waan leeyahay hawsha cidii ugu habooneed ninkii ugu haboonaa baan ahay waxaan rajaynayaa inaad markaa u taageeri doontaan oo dooran doontaan Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka soo baxay xisbiga wadani ayaa ah ninka isbahaysiga mucaaradku ay la rabaan inuu kursiga gudoomiyenimada golaha wakiilada uu qabto Cabdirasaaq waxa uu xilal wasiirnimo uu ka soo qabtay xukuumaddii tan ka horeysay waqtigaasi oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye waxa uu sanadihii ugu dambeeyay ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo uu ka noqday ilaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi isagana waxaanu weydiinay waayo aragnimadiisa sababta uu jagadan isugu soo sharaxay iyo waxa uu isleeyahay waad ku mudan tahay in lagu doorto waan isleeyahay waad og tahay labadaba duruufaha yaala marka uu mucaarad yahay iyo marka uu muxaafid yahay waxaan kaloo isleeyahay xogogaal u tahay duruufaha dalka yaala ee dadka haddii aan ganacsiga ku jiray iyo haddii aan siyaasadda ku jiray iyo haddii aan arrimaha kale ee bulshada iyo dhaqanka labadaba ka shaqeynayaan isleeyahay xogogaal badan baad u tahay waxa kaloo iyana aan isleeyahay waad ku mudan tahay in aad shaqada tan qabato waqtiga aad ku jirto oo qofku age groupku xilli ay wax qaban karaan baa jira waxaan isleeyahay waa xilli ku habboon inaad golahan hogaamiso marka loo eego aqoon ahaan marka loo eego khibrad ahaan iyo marka loo eego awood ahaanta shakhsiga ah marka intaasoo dhan laysku daro iyo xaqiyada aan u leenahay xisbiyadii mucaaradka ahaa ee helay aqlabiyadu inay hogaamiyaan golaha haddii runtii ay jirto ama garasho ama ixtiraam shuruucda dalkana maba ay ahayn in lagu tartamaya waxay ahayd siduu sharcigu qorayey maadaama labadii xisbi ee aqlabiyadda golaha haystay ay sameeyeen coalition oo ay isu tageen magacaabeen shir guddoon in la ixtiraamo madaxweynaha iyo xukuumaddiisuna ay ixtiraamaan bay ahayd laakiin galgalasho badan bay ka galeen waxaanan rajaynayaa galgalashahaas inay iska soo dhammaan doonto maalmo kooban ayaa ka harsan fadhigii ugu horreeyey ee golaha wakiiladu uu yeelanayo oo ah ka lagu dooranayo shir guddoonka cod gacantaagah ayaa xildhibaanadu marba mid ay ku dooran doonaan 6 nin ee jagadan ku tartamaya waxaana lagu kala badin doonaa cod haldheeriya Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa صديقه ومهدسن yahay bal markana Facebook aan si fursada qaar kamid dhageystayaashin raayigooda halka kaga soo dhiibtay midii laba Xamdan Muuse Saalax oo ka soo qortay badhan waxa leeyahay hadal ka soo yeeray dowladda deegaanka Soomaalida wadanka Itoobiya oo soo dhaweynaya shacabkuna xaq ay u leeyihiin in cadawga laga difaaco dowladda waxa ay mudan tahay inay u diyaar garowdo dagaal maadaama ciidan ka socda dowladda deegaanka la geeyay jiid hore dagaalka Jaamac Maxamed Food oo aynaba ka soo qoraysa wuxuu leeyahay waxba soo kordhin mayso xukuumadda deegaanka Soomaalida wadanka Itoobiya ay sheegtay inay difaaci doonto dadka Soomaalida ah ee degan garbaciisa waayo hadalka xukuumadda deegaanka waa mid hadal ku kooban oo aanay wax ficil la socon qaar kamid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook markana
maanta waxaa haatan weliba ciyaar fera dheelaysa raxmo cali oo ka mid ah ciyaartooyda soomaalida kaga qaybgelaysa tartanka koobka olombikada adduunka ee ka soconaya magaalada tokyo toos ayaanu halkaa idinta geenaynaa stuudio waxay la joogtaa kawtar maxamed abdulaahi oo ciyaartaasi daawanaysa dabcan ciyaartu haddan waxay maraysaa wareegga labaad ama roundka labaad kawtaray bal gabadhan ramla cali bal waa tuma cabdi fatax sidaad sheegtay ciyaartaasi waa ay bilaabatay ramlo cali waxay mar kale taariikh u sameyneysaa dalkeeda waxayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee kasoo jeeda soomaaliya ee u tartanta ciyaaraha feerka ee olimbikada sanadkii 2016 ay ahayd markii ramlo ay ku guuleysatay tartanka feerka iyadoo matalaysa dalka ingiriiska waxayna noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim ah ee ku guuleysatay ciyaarta feerka wixii halkaa ka dambeeyey ama guusheedii ka dambeeyey ee sanadkii xigay 2017 waxay go'aansatay in Soomaaliya ay ku matasho tartanka olimbikada gaar ahaan feerka ramlo iyada oo ilmo yar ah ayaa waxa ay qoyskooda ka qaxeen magaalada Muqdisho horaantii 9-meeyadii ramlo oo 31 sano jir ahna waxay sheegtay in hadafkeeda uu yahay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka qayb gala tartanka olimbikada ee feerka waxayna ka soo adkaatay haween badan oo dalal kala duwan u dhashay sida Mareykanka oo kale barashada feerka waxay bilowday markay 12 sano jir ahayd hooyadeedna waxay u sheegi jirtay in ujeedadeedu ay tahay jimicsi ee aanay tartan ahayn waxayna gabadhan tababar siiyey saygeeda oo lagu magacaabo Richard Moore oo isaguna ah tababare feerka waa ta ramla haatan waxay la dheelaysaa Maria Claudia oo dhinaca Romania ka socotay iyada waxaan ka naqaan gabadha ramlo kula tartamaysa cabdi fataaxow ee feerka oo lagu magacaabo Maria waxay ka soo jeedaa dalka Romania waxa ay ku biirtay ciyaaraha feerka markii ay 13 sano jir ahayd ka hor inta aysan ku biirin feerkana waxay dheeri jirtay ciyaaraha kubadda cagta natiijada kulankaas waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena ciyaaraha aad baad mahadsantahay kawtar maxamed cabdulaahi taasi ahayd faafaynta warkaasiina siinaysay markana Facebook aan siiyay qof ka mid dhageystayaasheena waa Axmed Maxamed Nuur oo garacad ka soo qoray wuxuu leeyahay gabadhaasi Soomaalida ah ee ku matalaysa Soomaaliya feerka daqiiqada kadibna bilaaban doona uu bilowday dabcan guul ayaan u rajaynayaa inay dalkeeda usoo hoyso dadka Soomaaliyeedna waa inay taageeraan gabadhaasi welina dadkaasi ay carabka ku taageeraan waxaan qaar ka mid dhageystayaasha qof ka mid dhageystayaasheena BBC Facebook ra'yigiisa halkaas kusoo dhiibanaya markana barnaamijkii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faisal Bishaar Aligo hayaligo mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Cumar Cali Raage oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Abuukar Cali Raage waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Qaahira Masar sanadii 2009 hadaba hadii uu maqlayo Abuukar Cali Raage ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cumar Cali Raage ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne Maryan Ibrahim Cabdi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Zainab Yacquub waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016 hadaba hadii ay maqlayso Zainab Yacquub ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maryan Ibrahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe Safiya Maxamed Cilmi oo joogto beledweyne waxay baafinaysaa Sahra Maxamed Cilmi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Malta sanadii 2013 hadaba hadii ay maqlayso Sahra Maxamed Cilmi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Safiya Maxamed Cilmi ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne Madiina Diiriye Xirsi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Cali Maxamed Xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga 2017 hadaba hadii uu maqlayo Cali Maxamuud Xaaji ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Madiina Diiriye ayadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho Axmed Muuse Xirsi oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa xamda muuse xirsi waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan Suudaan sanadii 2014 hadaba hadii ayna maqlayso xamda muuse xirsi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Axmed Muuse Xirsi ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso Zainab Ibrahim Aadan oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Axmed Madey waxa ugu wardambeysay sanadkii 1992 hadaba hadii uu maqlayo Axmed Madey ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zainab Ibrahim ayadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Guure Cali oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Jees Guure Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 2001 hadaba hadii uu maqlayo Jees Guure Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdulqaadir Guure Cali ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne
carfoon bilaal nuur oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa farduuso bilaal nuur waxaa ugu wardambeysay sanadkii 2018 haddaba haddii ayna maqlayso farduuso bilaal amaba jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo carfoon bilaal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. cabdi cali warsame oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa kayse cabdiraxmaan warsame waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlay kayse cabdiraxmaan warsame amaba ay jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey cabdi cali warsame iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. malyuun axmed jaamac oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa dahabo axmed waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo axmed amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo malyuun axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. xaliimo cabdulaahi muuse oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa cabdulaahi muuse cabdi yoome waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya sanadii 1996 haddaba haddii uuna maqlayo cabdulaahi muuse cabdi yoome amaba ay jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiye xaliimo cabdulaahi muuse iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. saafi cali oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa faadumo cali bare waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2005 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cali bare amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saafi cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. aamine maxamed ismaaciil oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa zaynab maxamed ismaaciil waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman haddaba haddii ayna maqlayso zaynab maxamed ismaaciil amaba ay jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyey aamine maxamed ismaaciil iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. iido aadan xuseen oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa xasan barow waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo xasan barow amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo iido aadan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. canab maxamed xaashi oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa dadka kale ah cabdulaahi maxamed cabdulaahi xabiibo maxamed cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan kanada sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo xabiibo maxamed cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyey canab maxamed xaashi iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. iido cali talas oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa barqash cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya 1993 haddaba haddii uuna maqlayo barqash cusmaan amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyey iido cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. hindo aruus maxamed oo joogto boosaaso waxay baafinaysaa maxamed aruus maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed aruus maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey hindo aruus maxamed iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. cali daahir macalin oo joogo muqdisho waxa uu baafinayaa mayow salaad waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo mayow salaad amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. aaniso ibraahim sheekh cali oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa fartuun bashiir hursi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jabuuti sanadii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso fartuun bashiir hursi amaba ay jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aaniso ibraahim sheekh cali iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. xaawo maxamed oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa muuse maxamed waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1992 haddaba haddii uuna maqlayo muuse maxamed amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaawo maxamed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. qadro cabdulqaadir xuseen oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa faadimo cabdulqaadir xuseen waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan xudayda yeman sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo cabdulqaadir xuseen amaba ay jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadro cabdulqaadir xuseen iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. muumow liibaan xasan oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa xaliime isaaq waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso xaliime isaaq amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo muumow liibaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho. siciid maxamed samatar oo joogo boosaaso waxa uu baafinayaa
bashiir maxamed samatar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir maxamed samatar amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiye siciid maxamed samatar iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. simar khaasim oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa bashiir khaasim waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir khaasim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo simar khaasim iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay casiise xaaji cali maxamed oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa maslaxo duuliye cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso maslaxo duuliye cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye casiise xaaji cali maxamed iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. baafintiina maanta waa naga intaa. faysal bishar aliig iyo caasho siciid aad bay u mahadsan yihiin barnaamijkii baafinta ayay nala socodsiinayeen anigana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa idaacaddii duhurnimo ee uu soo saaray xasan cali geele anigoo cabditax ibraahim cagaarna in la socodsiinayay cidduu barnaamijkan dhaafay waxaad dib uga daallacan kartaa barteenna internetka ee bbcsomali.com halkaas oo aad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyay caalamka gobolka iyo soomaalidaba hase yeeshee 5 galabnimo ka hor waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.